والمرسلين وسيرك كلوميسيغا iyo xanaanada xoolaha anagu maanta kalluumaysiga noo rasiinayna wasiirka kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha gudoomiyaha gobolka wafdiga kale ee ka socda sanduuqa SDF-ta iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay halkan maayarka degmada Ceergaabo xildhibaanada waayeelka iyo waxgaradka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iga raali ahaada aad baan maanta u faraxsanahay haddii hadalku iga khaldamo waxa weeye mashruucan maanta aynu daafuraynaa macnihiisu waxa weeye mayd iyo maanta waa dekadii kalluumaysiga ee mayd oo maanta muddo badan waxay soo socotoba soo guriga dhigatay oo runtii aynu maanta daafurayno waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa halkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloo aad halkan ugu hambalyeeynaa wasiirka kalluumaysiga oo aad ugu dadaalay arrintan wax ka qabadkeeda waxaan mar saddexaad aad ugu hambalyeeynaa sanduuqa SDF Somaliland Development Fund najax iyo injineer Mustafa iyo dhammaan shaqaalahooda oo dhan oo muddo wada shaqaynaynay aad iyo aad baan idinku hambalyeeynaa idinku mahadnaqaynaa waxaan halkan ka qirayaa anigoo ku hadlaya afka deegaanka in aanu hanan doono dekadana loo dhisayo aanuna sida ay tahay uga faa'iideysan doono midina way iga dardaaran haddii la rabo wax qabad waxaan dadweynaha gobolka Sanaag kula dardaarmaya inay nabadgelyada ilaaliyaan nabadgelyada la ilaaliyaa waxay keenaysaa mashaariicdan iyo qaar kale oo ka sii badan waxaan jecelahay inaan maanta jaaniskan kaga faa'iideysto mudane wasiir gudoomiyaha gobolka iyo maayarka degmadaba dekadii maadaama ay maanta noo dhisantay waxaan jecelahay ina liiska noogu dartaan academic ah culunta badda in maydna loo ka sameeyo oo aanu feasibility study-geediina dhamaynay aanu idin soo gudbin doono insha Allah bismillah kariim aad baan dadweynaha u salaamayaa wassalaamu calaykum